السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسو دوادا muuqaalkeena maanta waxaana ku falanqeyn doonaa goosgooska koowaad ee laga soo bandhigay qaybta 166 ee taxanihii gundiga Cusmaan fadlan haddii channelkan ku cusub tahay subscribe tii saar hore haddii nala joogto daawada muuqaalkeena la garay aad iyo aad ayadna u maasan tahay intaynaan guda gelin muuqaalka ka horatana ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadirna si toos ah aynu guda galna muuqaalkeena maanta waxaynu la soconay xalqad xiiso leh in inoo dhamaatay isla mar ahaantaasna meel fiican ee noogu dhamaatay oo ahayd markaasi Cusmaan iyo wiilkiisa waxa kala qabsaday waxaan ogeyn markaasi Calaadiin inay xaaladda ku xumeed Cusmaan si uu markaasi warmooga hadaba jeer ku tahay hadii Cusmaan uu u yimaado Cusmaan si uu joojiyo Calaadiin maxaa soo gaari doono maxaa yeelay duqeynta meesha ka dhacaysa ninkani dhaawacyo fara badan ayaa ku soo gaarayaan haddii mar dhaawacyo fara badan ay ninkani soo gaaraan xaaladana ay ku xumaato ciidamada Byzantiniyiinta ma daryeeli doonaan booskiisa uu ka joogi doonaa Cusmaanna dagaalka uu ka deeyi doonaa wiilkiisa qaabka uu ku soo badbaadsan lahaa falkeeda ayuu galaya halka caawimaad aysan u fidin doonin markaasi ciidanka meesha jooga Byzantiniyiinta iyo abaanduloodaba Andra lagu magacaabo taasoo ka sii dhigaysa markaasi Calaadiin inay xaaladda aad iyo aad uga sii xumaan doonto isla mar ahaantaasina geerida uu markaasi urin doono iimaankiisa tirada badan umbuuna ku badbaadi doonaa ninkani hadaba ninkani ma dhiman doonaa waa maya taariikhiyan xilligan ma uusan dhiman laakiin goosgooska ayaanu sharixi doonaa waxyaabaha taxana in xiisaha loogu talagalay loogu yeelay waaye Cusmaan markuu dhintay buu Calaadiin dhintay laakiin waqtigiisa lama joogo hadeer mana dhiman doono taas waa su'aasha asxaabtu isweydiinayeen hadaba goosgooska maxaa ku daawanay ninkii qaraasi ahaa inaba caadi maahan qaraasigii hore iska ilaw macalin qaraasi kale ayaa soo baxay oo awood badan isla mar ahaantaasina dadka indhaha faraha ka gelinayo inaba caadi maaha ninkii Baysungur ahaa inta la qabtay ayaa la garaacay dadka ayuu bareenkii ku sameynayay isaga ayay jir dileen isla mar ahaantaana wixii ka shifay markaasi inuu yahay jaasuus Cusmaan u socda isla mar ahaantaasna ilbuun been iska soo dhigay maadaama xalqadii hadda la soo dhaafay dhamaadkeeda la ogaaday isla mar ahaantaasna qaraasi uu Cusmaan u sheegay markaasi in jaasuuska uu ku soo dhaxdaray ciidamadiisa uu fahansan yahay isaga sidaas darteedana ninkii lagu magacaabay Baysungur feeraha ayay ka soo garaaceen isagoo xaaladda ku xuntahay ayaana waxa la keenayaa markaasi qabiilka mudana Cusmaan iyadoo goosgooska aanu ku daawanayno Cusmaan iyo sidoo kale ay kood iyo booran oo ninkani ag joogaan isla mar ahaantaasna waxa la weydiinayaa waxa uu ogaaday oo sidaan oo dhan loogu galay wuxuuna u sheegayaa sir ah markaasi in amaanadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isla mar ahaantaasi la xaday oo ay gacanta gaalada markaasi ku jirto waa sida asagu uu u sheegayo amaanad wuxuu leeyahay markaasi muqaddas ah dadka islaamka dhankooda marka loo fiiriyo ayay kufaarta gacanta ku dhigeen ayuu leeyahay taasina waa sababta markaasi uu halkan ugu yimid wasiirka lagu magacaabo Umar oo khaliifka uu soo diray Cusmaanna arinkaasi markuu ogaaday aad iyo aad ayuu xanaaqay waxaanu arkaynaa isagoo dhahayo amaanadaas meeshay rabaan hageeyaan waxa balan ugu ah markaasina gacanta ku soo dhigay xitaa godka dibqalo cadii geliyaha taa ka soo saaray ayuu leeyahay intaa kadibna waxaanu arkaynaa markaasi ninkii lagu magacaabay Calaadiin oo isla mar ahaantaasna god ku dhex jiro asagoona la dul saaray markaasi karfantiisii sidoo kale tana ay qaylinayaan markaasi baala iyo goonja iyadoo la wada naxsan yahay ayaanu arkaynaa barnaamijka Calaadiin horta muuqaalka bilowgiisa ayaanba ku soo afjaray ninkan waxa laga yaabaa gadaal inuu ka soo naaxo laakiin niyada laga saaro markaasi ninkan uu dhiman doono ma dhiman doono isaga dhacdooyinka kale goosgooska ku jira ayaa ka sii xiiso badnaa marka dhankaas ayaan u sii gudbaynaa maadaama arinka Calaadiin aanu markaasi hal qaanad isaga xirnay waxaan kale oo arkaynaa markaasi gabadha yar Caaisha lagu magacaabo oo aabaheeda la hadlayso waa ninka Elbay lagu magacaabo waxay ku leedahay markaasi goormaad la hadli doontaa markaasi mudana Cusmaan oo meesha waxa ka cad markaasi gabadha iyo aabaheeda inay barnaamijka iskala hadleen isla mar ahaantaasina ay weydiinayso mudana Cusmaan goorma u sheegay waxaan isagana wuxuu ku leeyahay tani waa sir gabadheeda ee looma baahna in qof loo sheego taasna waxaan ka fahmaynaa markaasi ninkani inuu rabo inuu qabiilka isaga baxo sidaas u fiilooba isla mar ahaantaasna gabadhiisa hore u ka haysto iyadana waxay isleedahay mudana Cusmaan ma loo sheegay miya maadaama aanu bixin ma macsalaamin miya taas in hadalka ula jeedo aan ahaan sida u filayo asagana uu leeyahay markaasi arinka waa sir sidaan ku bixina marka sirtan qofna looma sheego Soomaa gabadheeda waa hadalka meesha uu wada aniga ahaan qaabkan u fahmo markaasi su'aashiis weydiinta mudan ayaa waxay taa ninkan iyo u shaqeeyaa isaga maxaa yeelay waxaanu arkaynay isagoo mudana Cusmaan siriisa dhageysanayo hadaba ninkan ma laga yaabaa inuu qaraasi u shaqeeyo uu indhaha iyo dhagaha u yahay markaasi mudana qaraasi halkan uu ku sugan yahay jawaabta dhankaas commentiska ayaad nagu wadaagi kartaa fikirkaaga dhankaas commentiska noogu sheeg daawaday adigoo maasan waxa u maleynayaa ninkani inuu qaraasi u shaqeeyo waa sidaan u badinayo maadaama mudana qaraasi hadda xalqadii la daawaday awoodiisa lagu soo bandhigay waxa macquul ah markaasi qof asaga markaasi jaasuus waa inuu ku dhex jiro mudana Cusmaan qabiilkiisa waana muhiim
waxaana laga yaabaa ninkan Elbay lagu magacaabo inuu yahay maadaama siraha Mudane Cusmaan uu daba socdo sidoo kale tan aanu arkayna markaasi inuu badbaadiyay wasiirkii Cumar lagu magacaabay wasiirka iyo sidoo kale Qaraasina xiriirka ka dhaxeeya waa xiriir aad iyo aad u fiican marka sidaas darteeda maadaama asaga uu Qaraasi u shaqeeyo waa sidan u badinayay sidaas darteed ayuu u badbaadiyay ayaan dhihi karaa adigu siyaad u maleynaysaa daawade dhanka kale waxaa arkaynaa ninka lagu magacaabo Beehan iyo sidoo kale xaaskiisa Hazaal ayaa waxay soo shuutay hayaan oo soo qurqurxihaya markaasi wiilkooda Saruja iyagoona ku dhahaya markaasi hadda waa lagu hagaajiyay waa ina baxda aad u tagtaa Faadima sidoo kale tan hadiyada aan ku diyaarino waa ina gacanta ka saarta adigana waxa loo baahan yahay markay hadiyada ku wareejiso ina qalbigeeda aad la wareegto ayaa loo baahan yahay kulaha cidana sidaan u arkayno wax fara badan ayaa ka qaldan waxbayna isdawmarinayaan iyagoo hadda heshiis la dhaxdhiga qabiil kaleeto ayay hadda waxay faa'iido u arkaa markaasi Mudane Cusmaan gabadhiisa inay guursadaan si Mudane Cusmaan markaasi iyaga isugu soo dhawaadaan haddaba wiilka Saruja lagu magacaabo iyo Faadima wax kala qabsada ayaan arki doonaa markuu soo hor istaago miyuu qalqali doonaa mise si toos ah waxa ugu sheegi doonaa hadduu u sheegay xitaa ma aqbali doonta taas ayaa isweydiin mudan haddii diidahta aabeed ayaa laga doonan doonaa Cusmaan sama ogolaan doonaa wuxuu waa silsilad isku xirxiran oo marba meel iska furfurayso macquul maahan marka sidaas darteeda aniga aan sida u badinayo waa la isla meereysan doonaa seasonkan dhexdiisa ninkan iyo gabadhan wax ka dhaxeyn doonana anaga ma garanayno xitaa gabadhii lagu magacaabay Bigum iyadana walaalkeeda Yusuf ayay la hadlaysay waxayna ku dhahaysaa markaasi mustaqbalka qabiilkeena wuxuu ku xiran yahay markaasi adiga ayuu kugu xiran yahay waxayna ula jeedaa markaasi waxa loo baahan yahay markaasi Mudane Cusmaan gabadhiisa inaan noo soo dabto isla mar ahaantaasina sidaas ku guursatay maadaama iyada aanu arkayna markaasi xalqadii la soo dhaafay inay walaalkeeda ku dhiirigelinaysay gabadha u joogto Mudane Cusmaan markaasi in uu shukaansado si markaasi iyaga ay u guursadaan isla mar ahaantaasna xididka iyaga iyo Mudane Cusmaan ka dhaxeeyo uu noqdo markaasi mid adag sidaan arki karna markaasi gabadhani waa yarahay waxay dhahdaaba maanta laba nin ayaa erida u taagan doonayaan markaasi in ay markaasi xiriir la sameeyaan aragana waxay ku hadli doonto iyadoona arkayna xalqadii hadda la soo dhaafay walaalkeeda Calaadiin iyo sidoo kale Orhan iyadoo ku dhahayso hadda kadib waxaan rabaa inaad dagaalyahanad noqdo isla mar ahaantaasna ciidanka garbooda ka dagaalamo iyaguna waxay dhahayeen suuragal ma antaasna waalidkeen xitaa ka yeeli maayo marka naagta intaysan seefta qaban ayaaba irida loo soo istaagay waxa la leeyahay markaasi soo soco dhanka kale hada barnaamijkan uga baxno waxaanu arki karnaa markaasi ninkii Qaraasi ahaa wuxuu aadayaa markaasi dhanka iyo Buursa si uu la kulmo markaasi abaanduula meesha jooga ee Lucas lagu magacaabo halka generaalka Magnus lagu magacaabay ee Lucas ay wada sheekaysteen Magnusna waxa uu dhahayaa markaasi Lucas waxaan ku weydiinayaa yaa way qofka aasi doonta amaanada yaa sii doonta ayuu leeyahay ma laga yaabaa inaan Qaraasi ku wareejiso Cusmaan ku wareejin doonta qofka wajiga ka raadsanayso oo siin doonta yaa way ayuu ku leeyahay isagana qof wuxuu doonayaa markaasi inuu ku wareejiyo howlihiisa u qaban karo isla mar ahaantaasina kibir badan sidaas darteed waxa laga yaabaa markaasi inuu u doortaba markaasi Mudane Qaraasina sidoo u soo socday waxa uu imaanayaa markaas dhanka iyo Buursa wuxuuna u hanjabayaa markaasi ciidamada meesha joogan isagoo oo markaasi abaanduulaha doonaya inuu la hadlo waana Lucas ninka lagu magacaabo halka Lucasna gees uu taagnaa meeshii la rabay asaga Qaraasi inuu istaagsado ma taagneen waxaana meesha ka dareemi karnaa markaasi in ninka Qaraasi lagu magacaabo iyo Lucas ay wada kulmi doonin maxaa yeelay waxaanu arkaynay ninka garabku ah Lucas oo hortaagan markaasi Mudane Qaraasi halka ninka lagu magacaabo Lucasna uu gees taagnay Qaraasina uu dhahay markaasi waxaan idin barayaa dawladnimada waxa ay tahay wax ma garatay ayaa tiin ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo markaasi asagana Lucasna waa uu qoslay gees ayuuna ka taagnaa waxa laga yaabaa marka dambe inuu isku soo bandhiga ama uu sidaas isaga qarqariyo si aanan loo ogaanin markaasi inuu asaga meesha xaakimka yaa uu ka taliyo amaanadana waa la soo qaadayaa sidaan uu arkayno haddaba ma laga yaabaa inuu ku wareejiyo ninkani ani waxa is leeyahay markaasi waa uu ku wareejin doonaa asagoo waji ka raadsanaya maadaama Qaraasi qof laga faa'iideysan karo uu yahay odayga sidoo kale tan aan la dheelsan karin oo qof aqli badanna uu yahay dhanka kale tan waxa arkaynay gabadhii lagu magacaabay Holovira ayaa inta soo labisatay waxay timaado markaasi teendadii Mudane Cusmaan iyadoona Orhan uu dhahay markaasi Holovira maadaama gabadhani uu raadinayo oo xalqada la soo dhaafay hadda aan ku ogaan markaasi inuu dhahay maalmahan wax akhbaar ah kama hayo maruu Calaadiin wada sheekaysanayeen waxa macquul ah gabadhani inay soo raacin ninka lagu magacaabo markaasi Lucas ama qof kale ama iyada kaligeed inay meesha timaado sida akhbaar ugu soo gudbiso dadkani balse aan waxa u maleynaa markaasi Lucas inay soo raaceen isla mar ahaantaasna teendada Mudane Cusmaan ay imaadeen oo ninka lagu magacaabo Lucasna uu cadeynaya markaasi gabadha inay garabkiisa tahay maxaa yeelay gabadhan kaligeed meesha ma karto ama waxay noqon kartaa in gabadhani uuba soo diray ninka lagu magacaabo Lucas si akhbaarad ugu soo gudbiso loogu soo dirayba markaasi qabiilka Mudane Cusmaan waana mid macquul ah adiga laftirkaaga daawaday haddii aad midaas u filayso dhankaas comments ayaad nugula wadaagi kartaa waa macquul wax dhici karo way
waxaan kusoo gabagabeynaynaa markaasi xalaqada soo socota maxaa lagu daawan doonaa goosgooska dhammaadkiisa waxaanu ku arkaynay mudane cusmaan oo furashada ku qaada markaasi dhanka iyo qalcadii lagu magacaabayay kadrin isla mar ahaantaasna furanaya ayaan arkaynaa kardin muamis kadrin waa kulley aad qoraa maahan waa iska caadiye magsiyaas darteeda waa adiga meel ayuu furanaya ninka mudane cusmaan waatee qalcadii hadda wiilkiisa lagu haysta waay baaba ayuuna meesha ka geysanaya waxaanu arkaynaa kabacdi inuu wiilkiisa soo badbaadsan doono wiilka soo mid ayuuna meesha kasoo qaadan doonaa sidoo asaga rajeyn doono markaasi laakiin gadaal ayuu kasoo naaxi doonaa sidaanu sheegayna waxaan arkaynaa isaga oo dhahaya markaasi ilaahay waxaan kaa baryaya markaasi inaa ii fududeyso qaabkan uga guuleysan lahay gaalada sidoo kaleetana aan carabka iyo gacmaha uga goyn lahaa markaasi dadkii ammaanada rasuulka sal aleyhi wasalam gacanta kusoo taagay dad allaala qofkii diinkeena gacanta kusoo taago waxaan diyaar u ah gacantii carabkaba inaa ka jar ayuu leeyahay kulley muuqaalka intaasaan kusoo koobaya aad iyo aad umahadsantiin daawadaan taan ku kulmi doono muuqaalkiisa waxaa idinkaga tegaya salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh